kulankan oo ka dhacay meel ka yara baxsan tuulada Ari Cadee oo u dhaxaysa degmooyinka Xiraale iyo Caabudwaaq ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka culimada Ahlusunna wal Jamaaca oo ay kamid ahaayeen gudoomiyaha golaha fulinta ee maamulka culimada Ahlusunna wal Jamaaca Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefo, gudoomiyaha talada maamulka culimada Ahlusunna wal Jamaaca Sheekh Umar Sheekh Cabdiqaadir, gudoomiyaasha degmooyinka Dhuusamareeb, Caabudwaaq iyo Xiraale. waxaana sidoo kale halkaasi goobjoog ka ahaa ururada dhalinyarada ee ka kala socota labada degmo oo kala ah ururka dhalinyarada SYO iyo ururka dhalinyarada Voice of Xiraale. waxaana halkaasi ka dhacay heshiis ay labada dhinacba ay saxiixeen iyadoona halka lagu kala qaatay lacag mag ah. waxaana beesha degta degmada Xiraale iyadoo la gudoonsiyay lacag gaaraysa 15 milyan oo shilinka Soomaaliga ah, halka beesha degta degmada Caabudwaaq iyaguna la gudoonsiyay lacag gaaraysa 5 milyan iyo qoray, iyadoona halka lagu kala qaaday 2 maleeshiya beelood oo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi soo fadhiyay. gudoomiyaha golaha fulinta ee maamulka culimada Ahlusunna wal Jamaaca Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefo oo markii uu gabagabadii kulankaasi dhamaaday kadib u hadlayay telefishinka caalamiga ah Home Cable ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay dhinacyadii halkaasi xurgufta ku dhaxmartay in wax kasta oo dhaxmara ay wada hadal ku xaliyaan, loona baahan yahay in deegaanka si nabadgelyo ah lagu wada deganaado, daaqa iyo biyahana si nabadgelyo ah lagu wada cabo. kulankan dib u heshiisiineed ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyay oo xurgufi soo kala dhex gashay labada dhinac ee kala dega Xiraale iyo Caabudwaaq. Cabdiwali Xasan Jimcaale, Home Cable TV, Caabudwaaq.